Haweeney feeryahanad Kirishtaan ahayd oo qaadatay diinta Islaamka, taasi oo la yaab ku noqotay qoyskeeda oo dhammaantood Kirishtaan wada ahaayeen. Si aan u gudagalno qisadan dhabta ah iyo sababtii gabadhan ku kalliftay inay islaamto, walaal shargale muuqaalkan like-na saar si uu u gaaro saaxiibo badan. Mahadsanid, like-na waa inoo muhiim. Xigdigta feerka Netherland, Ruby Chisia Mezu ayaa qaadatay diinta Islaamka, waxa ayna si rasmi ah ugu shaacisay in ay diinta Islaamka qaadatay feeryahanadan baraha bulshada, gaar ahaan bogga ay ku leedahay Instagram-ka. Sidoo kalena islaamnimadeeda ay qabsatay baraha bulshada. Ruby Mezu waxa ay ka soo jeedaa qoys dhammaantood Kirishtaan wada ah oo tan iyo markii maalmo ka hor ay shaacinaysay in ay islaamtay, waxa ay haysatay diinta qoyskeeda ee Kirishtaanka. Ruby Mezu waxa ay bilowday ku dhaqanka diinta dhowr sano ka hor oo ay jeclaysatay iyadoon markaasi Islaam ahayn. Haddana waxa ay barataa diinta Islaamka si ay ugu dhaqanto. Diinta Islaamka ayayna si toos ah ugu qaadatay masjid markaasi ka ag dhowaa, shahaadadana halkaasi loogu qabtay, iyadoo sidoo kale sheegtay in ay diinta Islaamka qaadatay in ay ku kalliftay kadib markii ay aragtay wanaagga iyo cizziga ay leedahay diinta Islaamka iyo dad badan oo haysta diinta Islaamka oo ay la kulantay. Sawirro muujinaya xijaabkeeda iyadoo xiran ayaa qabsaday baraha bulshada, waxa ayna heshay qadarin iyo jacayl bulshada Muslimiinta ah ee ku baahsan wadamada caalamka. Feeryahanad Ruby, oo sidoo kale loo yaqaano The Lady Dyson, ayaa muddooyinkan dambe aad u qabsatay baraha bulshada, gaar ahaan kuwa dadka Islaamka ah iyo wadamada Islaamka ah, iyagoo markaasi dadku ugu hambalyeynayaan qaadashada diinteena suuban ee Islaamka. Feeryahanadan ayaa sanad iyo bilo ka hor masraxa feerka ku soo noqotay kadib markii shil nafteeda halis geliyay ay gashay. In muddo ahna la baxnaaninayay iyadoo mar kale ay dhaqaatiirtu u fasaxeen in ay feertami karto, ciyaaraha feerkana ka qaybgali karto. Markii caafimaadkeedu soo wanaagsanaaday ayayna si toos ah u qaadatay diinteena suuban ee Islaamka, iyadoo markaasi ku faanaysa in ay islaamtay, balse sheegtay in waalidkeed markaasi ay aad uga xumaadeen qaadashada diinta suuban ee Islaamka. Waxa ayna sheegtay in ay ku dhaqmi doonto shareecada Islaamka, barana doonto heerna ay ka gaari doonto diinta Islaamka.